السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada videoga labaad ee casharka labaad cilmu nafs casharkan waa cashar aad iyo aad muhiim u ah marka insha Allah tacaala pdf ka akhri videoskana dhowr jeer daawo insha Allah notes qaado su'aal walbo qabtidna comments ka hoos ku qoro marka casharkan maanta maxaad ku baran doontaa waxaan ka hadli doonaa ciyaarta maskaxda waa fahmi doontaa waxa ka wada markii aan u gudubno faa'iidooyinka joogtada ah ee yar yar muhiimadda cilmu nafsiga muhiimadda xeerarka marka insha Allah videogan ilaa intaan qaybada ka hadlayna videoga saddexaad waan ku dhamaystiri doonaa intaan kale laakiin videogan ilaa 4 qodob ka hadli doonaa marka insha Allah aan u guda galno qaybta hore ciyaarta maskaxda runtii aniga mar rabo inaan isku dayo inaan been idin sheego waxaa rabaa inaad la socotaan suuqan iyo ka ganacsigiisa especially waliba marka tahay ganacsado cusub waxay noqonaysaa waxyaalaha ugu adag ee aad isku dayi kartid inaad samaysid maskaxiyan wax fudud ma ahan waliba markii aad lacag run bilaad inaad ku shaqaysid muxuu ahaa akoonkaaga iyo lacagtiisa iyo dakhligaaga oo isbedbedelayo ma ahan wax fudud inta badan dadku ma haystaan wax ay u baahan yihiin sidii ay uga adkaan lahaayeen cadiifadooda ama muxuu ahaa shucuurtooda una xakameyn lahaayeen maskaxdooda ma haystaan cilmiga ma haystaan suuqa waxay akoon iska furanayaan intii technical analysis yar YouTube ka fiirsadaan isla markiiba trades iska galayaan marka taasna maxay keenaysaa inay qasaaraan inay wareeraan maskaxiyan inay hungurigooda bato cabsidooda badato marka waxaasoo dhan waxaana keenaysaa waa cilmi la'aan hal shay baa kalifi karto cilmiga haddii laga soo tago wax kaloo kalifi karo waxa waaye waa rabitaan la'aanta barashada sidii ay u xakameyn lahaayeen maskaxdooda dadka badankood maba rabaanba inay bartaan maba moodaan cilmu nafsiga inay tahay muhiim waxay moodaan muhiim inay tahay istiraatiijiyadii baranayaan marka istiraatiijiyadii raadsanayaan waxay baranayaan technical analysis indicators kala duwan ama tilmaamayaal kala duwan support and resistance bay soo baranayaan waxay soo baranayaan EMAs iyo price patterns waxaasay moodayaan inay meel gaarsiinayso laakiin runtaa rabaa inaan idiin sheego Kurweyne Academy ardayda ka mid tihiin lacagtiina la baxdeen cilmigiina investment ku samayseen oo maal geliseen waxaasna ma idinku dhacayso waxaa rabaa inaad ogaataan dadka badankood waxyaalaha kalifayo qasaarahan badan iyo wareerka badan inuu soo gaaro maba la socdaan marka adinka waa dadkaas ma ka mid tihiin tilaabo aad iyo aad u fiican baa qaadateen marka waxaa rabaa inaad waqti iyo dadaal aad gelisaan inaad baratid sidii aad maskaxdaada u xakameyn lahayd shucuurtaada u controli lahayd u maareyn lahayd waxaana muhiim ah inaad haysatid jacayl iyo xiiso aad u haysid oo aad la imaatid oo aad jacayl iyo xiiso u qabtid mawduucan markii aad taas keensatid waa baranaysaa sida u xakameyn kartid maskaxdaada iyo shucuurtaada sidaad u maareyn lahayd maskaxdaada iyo ganacsigaaga inaad meel fiican ka gaartid marka taas waa muhiim jacayl iyo xiiso la imow caajis yuusan kugu noqon casharadan insha Allah tacaala waa cashar aad iyo aad muhiim ah markaan ka socono aan gudubno tan waa fariin ku socota dadka caqliga leh haddii aad daba joogtid xaalad xiiso iyo farxad leh sida bakhtiyaar nasiib markii bakhtiyaar nasiib camal la sameynayo FX ama suuqan forex aad ayay taas ugu fiican tahay arintaas marka ka gudub casharadan ka gudub caajis waaye caajis kugu noqonayaan isla markiiba waxa u gudubtaa istiraatiijiyada u gudub dib u habeyn ku samee istiraatiijiyada oo wax yar ka badbedel kadibna tradeyaal inta furatid adoo lacag run ku shaqaysanaysid waqtiyada gaagaabanna isticmaal waa taas haddii aad raadinaysid xaalad xiiso leh oo farxadna leh waa hadaa raadinaysid laakiin hadaa raadinaysid ganacsi dhab ah oo rabtid faa'iido joogto ah inaad suuqan ka soo saartid oo aad rabtid inaad noqotid ganacsade forex laga dambeeyo natiijooyin leh la qadariyo asaga nafsadiisa isqadariyo oo muxuu ahaa maskaxdiisana maareyn karo casharadan akhri aad iyo aad muhiim u yihiin si buuxda u akhri sida idin sheegay qorshihii waxbarasho isticmaala 3 jeer ku celceliya casharada marar badan baa tan ku soo celinaya because wax aad iyo aad muhiim u tahay notes qaata ha ka gudbin casharada insha Allah tacaala faa'iidooyin joogta ah oo yar marka maxaa waay waxa ka wada ujeedada ganacsada ahaan waa inaad soo saarto faa'iidooyin joogta ah
oo soo noqnoqdo sanad walba bil walba soo noqnoqdo furaha ayaa ah inaad diiradda saarto faa'iidada joogtada ah waxaa loo yaqaano consistency joogto sida aan ku aragnay qaybta koobaad ee casharadan xisaabta dulsaarka isku darka way awood badan tahay waxaa loo yaqaano compound interest aad iyo aad u awood badan tahay awoodeedana ma ka imaanayso inaad muxuu ahaa idin siiyo qorshe ah $100 ku bilaaba maalin walba suuqa soo fadhiista 10% ama 10% maalin walba qabta sanad markuu dhammaado 1,000 iyo ka badan baa gaaraysaan sidaas ku wada dhowr bilood gudahood 10,000 iyo ka badanba taas ma ahan waxaa ka wado taas waa compound interest ama xisaabtan isdulsaarka oo si khalad loo isticmaalo waay taas ma waxaa ka wado waa casharka koobaad wixii aan ka hadlayay waa idin tusiyay haddaad xasuusan hadda dib ugu laabo casharkaas oo soo fiirso aad iyo aad muhiim u tahay inaad fahantid compound interest iyo sida saxda loo isticmaalo waqtiga qoraalkan ninkan loo yaqaano Warren Buffett hadda at the moment waxa waaye waa ninka adduunyada labaad ee ugu taajirsan ninka afaraad waaye ugu taajirsan adduunyada dakhligiisa wuxuu gaarayaa ilaa iyo 84 bilyan oo dollar ma aha milyan yah bilyan oo dollar marka waxa rabaa inaan idin tusiyo ninkan markuu bilowbayay dakhligiisa intuu sameyn jiray sanadkii bil ma ahan maalin ma sanadkii intuu sameyn jiray Buffett isku celcelis ahaan sanadkii wuxuu faa'iidi jiray in ka yar 25% 25 hadda ninkan waa ninka afaraad adduunyada ugu taajirsan dadka qaarkoodna waxay rabaan intaan inay ku sameeyaan hal maalin iyo laba maalmood gudahood waxa arkay dadka qaarkood oo dad waxaan baraya oo dhahayo anaka experts baan nahay dadkiina waxay barayaan 10% maalin walba samee hadda ninkan waa nin billionaire waa nin billions haysto 84 bilyan hadda inay ka badan tahay laga yaabaa oo sanadkii oo dhan intaan sameynayo markaas dadka qaarkood waxay kula imaanayaan waxa sameynaysaa bishii aan dhihina maalintii iyo labadii maalmoodba intaan sameeyo marka wax aqli gala ma ahan ninkan 25% buu sanadkii sameyn jiray idin tusiyo in hadda la bilaabi lahaa haddii aad awood u lahayd inaad $10,000 u dhiibatid oo maal gelisid Warren Buffett markii uu bilowbayay shaqadiisa goormo markuu bilaabayay waa 1956 markuu bilaabayay oo sanadkii iska dhano 100% ayaa faa'iideysay isku celcelis ahaan dhamaadka sanadka koobaad $10,000 waxay isku bedeli lahayd $12,500 waa $2,500 yaa faa'iiday sanadka ugu horeeyay dadka qaarkood markii waxa arkaan waxay leeyahay ruuxaas waxna ma ahan waa hadda 25% sanadka labaad 15,000 waxna ma dal bixinaya isla 15,000 22,500 yaa u deysay sanadka labaad intaas sanadka shanaad 10,000 waxay isku bedeshay $30,000 haye hadda 2020 markii la gaaro dakhligaaga wuxuu ahaan lahaa una qalmi lahaa 16 bilyan milyan ma ahan bilyan hadda tan waa markii aad ka faa'iideysanaysid muxuu ahaa compound interest ama xisaabtan isku celceliska isdulsaarka 16 bilyan dollar taas anaka hadda macquul maan inaan because 1956 ma ku laaban karno dadka badan muxuu xilligaasna 10,000 inaad haysato ma laga yaabo maada dhalan dad badankeen maana dhalan xilligaas marka reality-ga raba inaan ka hadlo taasna waa ka hadli doonaa taasna waa idin tusiyay istaraatiijiyadan iyo waxa ka sameyn kartid bishii 10% waa ka sameyn kartaa dadka qaarkood 20% way ka sameyn karaan marka haddaad ka fikirtid hadda raba inaan idin tusiyo mar kale compound interest adoo sameynay 10% oo 10,000 ku bilaabay sanadka ugu horeeyay inta gaari kartaa raba inaan idin tusiyo insha Allah hadda aan bilaawno compound interest calculator haye waa kana website kan imaada insha Allah taala waxaad practice ku sameeya oo number kala duwan galiya compound interest iyo awoodeeda arkaysaan 10,000 ku bilaada dhaha $10,000 bishii hadaa sameynaysa 10% taas macnaheedu waxa waaye sanadkii 20% sameynaysa 12 bilood baa sanadkii ku jiro 12 bilood baa calculate xisaabinayna maalin wal compound interest maadaama anaka isbuuc walba faa'iido sameyno daily baa dhehna monthly ma dhehna daily baa leena calculation sameyno sanadka ugu horeeyo 33,000 sanadka ugu horeeya
maasha allah aad iyo aad u fiican tahay. sanadka labaad aragno sanadka labaad 33,000 maxaa u bedeshay 100,000 109,000. haye sanadka ku xiga aragno sanadka saddexaad dhammaadkiisa intee baa gaarsiisay 100,000 ilaa iyo 300,000. markaas waa u jeedaan awoodda istiraatiijiyadda, waa u jeedaan waxa raba inaad xoog gelisaan barashada istiraatiijiyadda ee cilmigan insha Allah tacaala. ha ka fikirina short term xilliga gaaban, ha u fikirina maalin walba 110 intaas isku daya inaad sameysaan. dadka qaarkood 110 isku daya inay sameeyaan maalin walba way qasaarayaan 2 3 4 sano ka bacdi waxa arkaysaa iyagii oo meel isla meeshii joogo weli isku daya inay wax bartaan ama wixii dhan ka niyad jabo. marka aniga waxaas ma idin rabo, waxa raba ganacsigan sida saxda inaad u isticmaashaan insha Allah. ka socono marka maxaa mawduucaas iyo faa'iidooyinka joogtada. hadda waxaan filayaa rajeynaya inaad fahantaan awoodda compound interest sida saxda in loo isticmaalo. haye muhiimadda cilmu nafsiga saddexdan sadar aad iyo aad muhiim tahay insha Allah. si fiican ila akhriya, si fiicanna u akhriya, si fiicanna u fahma in xoogaa lacag ah laga sameeyo suuqa aragti ahaan. ma ahan yaa inaad caadi u sameynayso, aragti ahaan waa fikrad ahaan waa wax aad iyo aad u fudud. sayb u fudud tahay waxaa furanaysaa chat baa furanaysaa, istiraatiijiyadda baratay meesha ka soo gali lahayd arkaysaa, meeshii ku dhamaan lahayd waqti gadaal intaa u fiirsid suuqa asagoo waqti gadaal fiirinaysaa. marka hadda 2020 waaye 2019 tagaysaa waxaa fiirinaysaa istiraatiijiyadda oo meel shaqeysay. waxaa leedahay haddaa 10,000 gelin lahaa halkaas ganacsi waxaa sameyn lahaa 40,000. marka aragti ahaan waa wax aad iyo aad u fudud in xoogaa lacag ah laga sameeyo suuqa. ku dhaqan ahaan hadda waa inaad caadi u sameynaysid hal jeer 2 jeer, taas laftirkeeda waa wax fudud ayadana, wax adag maaha. laakiin sameynta faa'iidooyin joogto ah oo soo laabto waqti dheer, bil walba soo laabto, sanad walba soo laabto, tan ma ahan wax fudud. tan waaye waxa dadka dhibo, tan waaye waxa dadka kala saaro ganacsadayaasha muxuu ahaa faa'iidooyin ka sameeya oo muxuu ahaa dhammaystiran ya ganacsadayaasha wareersan oona cilmu nafsi iyo si u fikriyaan aan waxna ka qabin. tan waaye waxa dadka kala sooco waa midaan. ganacsade cusub oo aan suuqan FX waxna ka aqoon ayaa furan karo akoon ganacsi, trade ayuu furan karaa, kuna kasban karaa nasiib awgeed. meeshaan waa inay ahaataa nasiib awgeed inuu lacag badan haye wax naftii kana inuu lacag badan faa'iido waa nasiib daraadeed. tan macnaheedu ma ahan inuu ninkan yahay ama ganacsadaha yahay ganacsade xirfad leh. taas macnaheedu ma xirfadda dhabta ah ee ganacsigan suuqa waxay ku xiran tahay kuna dhisan tahay waa abuuridda soo laabasho joogto ah, waa abuuridda faa'iidooyin joogto ah oo soo laabto adigoo muxuu kana faa'iideysanayo xisaabtan isdulsaarka. marka insha Allah saddexdan aad iyo aad muhiim tahay inaad fahantaan, waa muhiim. ganacsadaha ku imaanayo wuxuu ku tusin karaa inta jeer uu faa'iiday 1 2 ilaa 10 jeer. taas macnaheedu maaha inuu yahay ganacsade dhammaystiran. ganacsadaha dhammaystiran waa ganacsade bilal badan soo laabto faa'iido, waa ganacsade sanado badan oo soo laabto faa'iido, waa ganacsade markuu ku tusay 6 bilood ugu dambeysay ku tusin karo consistency faa'iidooyin joogto ah. ma ahan ganacsade hal isbuuc ku tusinaya faa'iido 40% 60% bishaas markii dhamaatana faa'iido yar la imaanayo ama qasaaraba la imaanayo. haye muhiimadda xeerarka si aad u noqoto ganacsade faa'iido badan waxaa muhiim ah inaad dhaqankaaga aad habaysid una hago qawaaniin adag iyo xeerar aadan jabin. xoogaa kadib koorsadan waxaad baran doontaa sida loo soo saaro xeerar ganacsi adiga ku gaara. xeer ganacsi adiga ama qorshe ganacsi adiga ku gaara waa baranaysaa si loo soo saarto oo waxaana muhiim ah inaad xeerarkan raacdid, qorshahan ganacsina aad raacdid ugu yaraan 90%. waa muhiim inaad ilaaliso naftaada maadaama aysan jirin tilmaamo dibadeed oo aysan jirin cid inoo sheegayso markii aan qaladaad sameynayno. haddaan tusaale idin siiyo, haddii ciyaar football camal ama kubadda cagta qofka ilaalinaya xeerarka waa refereega ama albitraha. iskuulada qofka xeerarka ilaalinaya waa macalinka
marka waxaas ma jirto. ganacsigan waa ganacsi cid ku ilaalinaysa malaha. waxaa muhiima inaad adiga isilaalisid, inaad qorshahaaga ganacsi dib u eegis ku samaynaysid mar walba, oo adiga aad fiirinaysid inaadan khaladaad badan sameynin. taas aad iyo aad ay muhiim u tahay. tanna waa muhiimadda xeerarka. haddaadan qorshe ganacsi haysan, xeerar adag oo aadan raacin jirin, khaladaad badana samaynaysaa, khasaaro badanna wuu kusoo gaari karaa. taasna ma idiin rabo. insha allah tacaala videogan labaad ee casharka cilmu nafsiga intaasa kusoo gabagabaynayna. ku celcesho. waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iiday casharkan. asalaamu calaykum.